Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada dhaqankaab iyo sheeko cusub. Waa sheekadii Calibaaba iyo xaaskiisu waxay ku noolaayeen tuulo yar. Calibaaba waxa uu ahaa nin faqiira oo aan lahayn ganacsi, beero iyo adduunyo kala toona. Keliya Calibaaba waxa uu lahaa dameer, kaasoo uu kusoo guro xaabo kana iibiyo dadka degan tuulada. Maalin kasta Calibaaba waxa uu kaxaysan jiray subaxii dameerkiisa, waxa uu kusoo rari jiray xaabo. Waxa uu keeni jiray galabtii tuulada, halkaas uu ka iibin jiray xaabada. Sidaas ayaa uu ku maarayn jiray nolosha qoyskiisa. Maalin maalmaha ka mid a Calibaaba oo sidii caadadu ahayd dameerkiisii ku raray xaabadii, waxa uu maqlay buuq, sawaxan iyo qaylo. Xoogaa markii uu hareeraha eegay waxa uu arkay niman fuushan fardo oo ku soconaya xawaare sare. Calibaaba aad ayaa u cabsaday. Waxa uu markiiba fahmay inay yihiin tuug ama niman budhcada oo wax dhacaya. Si degdega ayaa uu Calibaaba dameerkiisii u soo qabtay. Waxa uu ku dhex xidhay meel kaymo ah oo aan la arkaynin, isaguna waxa uu fuulay geed dhakadii. Nimankii waxa ay ka soo degeen fardihii, waxa ay kala soo degeen kiishash waaweyn oo ay dhabarka ku sitaan. Xoogaa markii ay socdeen ayaa ay hortaageen god weyn oo uu afka hore ka saaran yahay dhagax. Hogaamiyahoodii ayaa is-ag taagay hoggii. Waxa uu la hadlay dhagaxii, waxaana uu yidhi, albaabkan barakaysan oo idinka alle ku furan. Calibaabana dusha ayaa uu kala socday oo uu dhegaysanayay waxa ay leeyihiin. Nimankii waxa ay galeen dhammaantood hoggii weynaa. Xoogaa kabacdi waxa ay ka soo baxeen iyagoo aan sidanin kiishashkii waaweynaa ay dhabarka ku sideen. Calibaaba waxa uu fahmay inay soo dhigeen wixii ay sideen godka. Markii ay tageen ayaa uu Cali ka soo degay geedkii. Waxa uu istaagay halkii uu istaagay hogaamiyuhu. Waxa uu la hadlay dhagaxii. Waxa uu ku yidhi hadalkii uu maqlayay oo ahaa, albaabkan barakaysan oo idinka alle ku furan. Nasiib wanaag waxa furmay albaabkii. Calibaaba waxa uu soo galay hoggii. Waxa uu arkay hogga waxa ka buuxa dahab iyo dheeman iyo dhagaxaan kale oo aad u qaaliya. Calibaaba oo aad u faraxsan ayaa jawaan ka buuxsaday dahabkii. Waxa uu ku soo raray dameerkiisii. Waxa uu keenay xaafadiisii. Waxa uu qisadii uga sheekeeyey xaaskiisii. Calibaaba waxa uu ku yidhi xaaskiisii, waxaad inoo soo qaadaa galaan aynu ku miisno dahabka. Waxa Calibaaba jaar la ahaa walaalkii oo la yidhaahdo Caamir. Waxa uu ku yidhi, Caamir, waxaad inooga soo qaadaa galaan aynu ku miisno dahabkan. Xaaskii Calibaaba waxa u timi Caamir. Waxa ay ku tidhi, waxaad noo dhiibtaa galaan. Caamir aad ayaa u yaabay, waayo Calibaaba kuma ogeyn waxa uu ku miiso galaankan. Waxa uu ku yidhi, maxaad ku miisaysaan galaanka? Hase ahaatee xaaskii Calibaaba umay sheegin waxa ay ku miisayso. Waxay ku tidhi, odagayga ayaa doonaya. Caamir oo ka shakisan arrinka ayaa waxa uu sameeyey galaankii waxuu xagga dambe kaga dhejiyey koolo, taasoo uu isleeyahay aad ku ogaatid galaanka markay kuu soo celiyaan wixii ay ku miiseen. Sidii ayaa ku soo qaaday xaaskii Calibaaba koobkii. Waxa ay ku miiseen dahabkii. Calibaaba dahabkii waxa uu qoday hogag ama god, kuwaas oo uu ku aasay. Koobkii ayaa ay u soo celiyeen Caamir. Caamir waxa uu arkay koobka dahabkaga dhegan xagga dambe. Waxa uu ku yidhi, ii sheega meesha aad dahabkan ka keenteen, haddii kale waxaan idiin sheegayaa dadka tuulada oo dhan. Sidaas ayaad deetana ku fashilmaysaan oo lagu ogaanaya arrinkiinna. Calibaaba ayaa uga sheekeeyey qisadii iyo sidii uu ku soo helay dahabkan. Caamir oo ahaa nin aad u hanti jecel waxa uu ku yidhi, kaale isoo tus. Calibaaba iyo walaalkii Caamir waa ay soo raaceen. Waxa ay yimaadeen godkii. Calibaaba waxa uu ku yidhi, godka markaad furayso waxaad tidhaahdaa, idinka alle ku furan albaabkan barakaysanow. Marka aad xidhaysana waxaad odhanaysaa, idinka alle ku xidhan albaabkan barakaysanow. Caamir waxa uu ku yidhi, inaga keen, waynu iskaga tegaynaa, waxba kama qaadanayne. Sidii ayaa isku soo raaceen oo ay iskaga yimaadeen labadoodii. Caamir waxa uu kaxaystay 2 faras oo uu lahaa. Waxa uu ku noqday godkii isaga oo keligii ah. Waxa uu is yidhi, dahabka soo guro keligaa. Waxa uu is hortaagay albaabkii dhagaxa ahaa. Waxa uu yidhi sidii loo sheegay, idinka alle ku furan albaabkan barakaysanow. Dhagixii weynaa waa uu furmay. Caamir waxa uu dhex galay godkii. Waxa uu ka soo buuxsaday kiishash badan dahabkii. Markii uu is yidhi soo bax, uu marayay albaabkii. Waxa uu ilaaway wixii uu ku furmayey albaabkii. Dhagixii weynaana waa uu isku xidhay. Caamir tala ayaa ku caddaatay. Isagoo ku dhex jira meeshii waxa yimid nimankii tuugada ahaa. Waxay arkeen 2 faras oo hortaagan meeshii ay dhigan jireen dahabka. Isla markiiba waxa ay fahmeen in la soo galay gurigoodii. Si degdega ayaa ay u soo galeen hoggii. Hogaamiyahoodii ayaa sidii uu ku furmi jiray dhagax yidhi, idinka alle ku furan albaabkan barakaysanow.
iyagoo aad u xanaaqsan ayaa ay soo galeen. waxay arkeen ninkii shish dahaba buuxsaday oo dhex taagan hoggii weynaa. isla markiiba waxa ay ka jareen kurta caamir. halkaas ayaa uu caamir ku waayay naftiisii isaga oo isleh walaalka kala dhuuma dahabka keligaana isticmaal. haddii aad ka hesho sheekooyinka noocana like iyo share iyo subscribe basaar channelka si ay kuu soo gaadhaan muuqaalada cusub annaguna aan u soo badino sheekooyinka noocana.